waa ka taxanaani angashii la xidhay qaybtii 7 dhagaystayaal waxay inoo maraysay ninkii askariga ahaa oo soo dur istaagay naftoorihii la dilay ahaana walaalkiisii ay naaska isu sii daayeen oo ku duldhacay meydkii goorma maxayse baroore u tari wuxuu galay kooma dheer waa 2 jeer qaraacane mar wuxuu la socdaa ciidanka walaalkii qasho mar kale wuxuu ogaa markii la soo sheegayay xogbaasta ciddii soo sheegtayna wuu garanayaa oo weliba sokeeya ah xabaar kadib markuu soo miirsaday wuxuu maqlayay iyagoo oo isku leh caadi iska dhigaabo ilaahay baa kaa soo qabtay kac oo caadi iska dhig halloori waxaan maqal ayuu iska dhigay waxaan dhihi karnaa wayba u naxariistay maalmo kadib ninkii askariga ahaa oo colaadi ku weyn tahay inuu aar gutana ku rayn lahaa ayaa fikiray oo halkee buu ka bilaaba ma ninkii soo jaajuusay buu daydayda ma ninkii saneefarka ku toogtay ee uu arkayay markuu tooganayay ayuu mawtiyaa u dilaa dhankee buu ka ballaysima hallaylahe farriin ha u diro reerkoodii hana u sheego ninkay wiilkooda kala xisaabtamayaan oo ay magaciisa garanayaan waa jaajuuskii markay farriintii gaadhayba 2 habeen kadib waxaa la soo sheegay nin shacab ah oo ay qoladii duurku ku dishay dulaadka meel hebla wuu ka hubsaday magaciisa bal inuu isagii yahay oo mar labaad iigu celi yidhi hallaylahe waa isagii warkaa wuu ku diirsaday balmalee xaqiiqada halkaa ka soo wareegtay iyo jaranjarada ay soo martay haddaad xaq u dirir tahay jaajuuska kula dhashay kuma roona inaad disho dhagar kasta oo u geysto waxay dantaadu ku jirtaa inaadan taabannin ugu yaraan u sheeg in laga warhayo balse haddaad taabato wuxuu bi'inayay waxaa ka badan waxa dhiiggiisu bi'in doono taariikhda ayaana taas markhaati inoogu filan waayo shacabku ma ogaan karaan jaajuuska mana caddayn karaan adiguse waxaad ku ogaatay sirdoonkaaga balse iyaga uma fududa inay ogaadaan jaajuuska aad makasho iyagoo wuxuu u noqon ama u yahay miskiinkii ina hebel ahaa waxaana rumoobi dacaayadihii uu kaa faafiyey gumaysigu dhaqaaluhu falkinayana saamayntiisu meesha kama madhna tafantoofka gaalkiinna baday waan tixgelinnaaye waa tarango'ennii haddaad taaju gelisaan harqoodkuu gumaysigu tigtigay geesu suga tiiri tulud adiga kaa maqan nin kale tiisa ha u dooni istoraysi mooye wax kale taabageli waaye taariikhdu waxay kaaga tagi 2 tusaalood duduulyo ka mid ah gabaygii tiiraanyo aan dib ugu laabanno cali iyo mulaaxo oo ay isugu dambaysay goobtii lagu hobtay goor fiidkii ah ayuu salaan kaga naxsaday iyadoo dhiilal cuganaysa waxay iska waraysteen xaaladda guud iyo midda reerka midba midka kale horjooggiisa wuu ku faraxsan yahay balse halkaas laysu dhaafi maayo midba midka kale ayuu milicsanayaa balse xuduud baa dhex taalla waxaa horey uga dhexeeyey kalgacayl aad u badan balse la muujin maayo oo dhaqanka raacatada waa waxaan u bannaanay inkasta oo ay lamaanuhu isjecel yihiin haddana suuragal ma aha inay si buuxda isoogu bandhigaan jacaylkooda iska baddaa inay istaabtaan wax habboon ma aha inta ay gabadhu jeceshay wiilka inay u cabbirto iska daa cid kale inay la wadaagto gabadha Soomaaliyeed inay afkeeda soo mariso hebel waan jeclahay waxay u taqaanay ceeb iyo faxshi weyn caliyaar wuu jecel yahay mulaaxo balse nasiib darro halgan ayuu maanta ku jiraa ma hayo dumar iyo warkoodaba wuxuu ka soo jeeday qoys ladan wayna u fududaan lahayd inuu gololo haween qabiltu yidhaahdo waxay lahaayeen 2 kadin oo geel ahaa sida la og yahayna geelu waa hantida u qaalisan ee raacatadeenna balse ilo xidhloo aasteeyo wuxuu ka doorbiday siifadda baaruudda oo uu qado iyo quraac ka dhigto inta ay heryadu gumaysigu saaran tahayna kuma tallamo waxaan ahayn guul ama geeri in maanta aroos loo gingimo wuxuu u arkaa khaayinnimo aan mid ka weyni jirin mulaaxa waxay isbarteen 3 sano ka hor ku sinnaan wakhtigii laga soo baxay dagaalkii coballe ee lagu jabiyey ciidamada gumaysiga iyo indhayartii shiinaha waa halkuu lahaa abwaan axmed sheekh cali heelaale ha la jaro dhulka annaga ka joog jayna laga waay waxay u imaadeen iyaga oo 9 naftii uraa waxay u baahnaayeen cid loo diro magaaladii ugu dhoweyd markaa oo warbixin iyo adeegba uga keenta waxayna markaa ahayd mulaaxa foodley aan weli taabagal ha yeeshee wakhtigaa ka wiratay muddo yar ka hor unbay noqotay
xubin dhaarsana ah, balse laguma hadlayo arrimo waaweyn oo ay aragnimo, siyaasad iyo maarayn u baahan. Caliyaar ayaa wuxuu ka codsaday inay ugu yeedho qof rag ah oo xubin ay taqaana ah si loogu diro 3 arrimood. Waa qalinkii qoraa Maxamed Barayare waa Cabdi Habiyo idin leh la soo qaybta.